habeen wanaagsan ku soo dhawaada wararka Soomaalida ee caawa waxa kamid ah waxaa la beegsaday dhowr goobood oo xarumo ay qawaariijtu u ahaa ay ku lahayn halkaasi jilib waa qasaare ka dhashay howlgal lagu beegsaday xarumihii al-shabaab ee jilib ee gobolka Jubbada Dhexe warar ayaan idinkaga haynaa qodobadeena kale waxa kamid ah Mareykanka iyo dawladda Soomaaliya oo iska kaashaday duqeymo lagu burburiyay shabakad al-shabaab oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe Puntland oo ka hortimid qaadashada kaarka aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya iyo safaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo beenisay warar ay ku tilmaantay been abuur oo laga baahiyay soo dhawaada daawadayaal wararkeena waxaan ku bilaabi doonaa warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay howlgal lagu beegsaday xarumihii al-shabaab ee degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal lagu bartilmaameedsaday xarumo muhiim ah oo al-shabaab ku lahaayeen magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe kuwaasi oo si gaar ah u ahaa meelo tababar diyaarinta qaraxyada iyo guryo horjoogayaal ay lahaayeen howlgalkan ayaa si gaar ah waxaa loola eegtay xarunta degmada oo lagu yeeri jiray jabhadaha laba xarumood oo ay ku sugnaayeen lagu sameeyay jiray tababarada iyo qaraxyada iyo laba guri oo ay deganayeen horjoogayaal lagu kala sheegay magacyadooda Xasan Yacquub iyo Amiin sida warbaahinta uu sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac mar kale waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa inay dhaceen howlgallo ballaaran oo lagu beegsaday cadawga qawaariijta laguna beegsaday degmada Jilib oo ah xarunta ay inta badan qawaariijtu isticmaalaan in ay ka soo abaabulaan weerarada iyo dhiigdaadinta iyo dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed weerarkaasi ay si wadajirka u fuliyeen ciidamada qalabka sida iyo saaxiibada caalamka si wanaagsan oo guul ah ayuu ku soo idlaaday waxaa la beegsaday dhowr goobood oo xarumo ay qawaariijtu u ahaa ay ku lahayn halkaasi Jilib oo ay ku jiraan laba guri oo ay deganayeen laba horjooge oo la kala yiraahdo Xasan Yacquub iyo Amiin oo intaba ku yaala degmadaasi Jilib ciidamada qalabka sida iyo saaxiibada caalamka ee weerarkaasi qaaday waxay si guul leh ugu guuleysteen inay burburiyaan dhammaan xarumihii iyo goobihii ay beegsadeen ee laga soo maleegayay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed dhinaca kalena dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa waxay iska kaashadeen duqeymo lagu burburiyay xarumo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe ee Africom ayaa ka qayb qaadatay howlgalkaasi warkan waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Nimcate Macade ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidanka cirka ee Mareykanka iyo Afrika oo magacooda loo yaqaan ayaa sheegay in howlgal duqeyn ah ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab kaasi oo ka dhacay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe howlgal duqeyn ah oo ka dhacay deegaanka laba garas ayaa la sheegay in lagu burburiyay sida hadalka loo dhigay dhagaro kooxda qorsheynaysa inay dib isugu soo abaabulaan kadib jabkii ay kala kulmeen dagaaladii ka dhacay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolkaasi sidoo kale dawladda ma sheegin inta uu gaarsiisan yahay qasaaraha soo gaaray kooxda balse waxay hoosta ka xariiqday in Africom iyo iyaga oo iskaashanaya ay duqeymaha ku jabiyeen sida warka ay u dhigeen al-shabaab ciidanka qalabka sida iyo saaxiibada Africom ayaa ku howlan xoojinta iskaashiga ciribtirka qawaariijta iyo qiimeynta qasaaraha qawaariijta ku gaaray howlgalladii u dambeeyay oo marba marka ka dambaysa ay soo taraya taasi oo muujinaysa in ay qawaariijtu sii jabayaan ayaa lagu yiri bayaanka dawladda Soomaaliya waxaa jira warar sheegaya in duqeyntani ay ku dhinteen dad rayid ah ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya ama saaxiibada caalamiga ah ee taageeraya oo ku aadan warka la xiriira qasaaraha rayidka inta badan duqeymaha ka dhaca Soomaaliya waxaa wax ku noqda dad rayid ah sida ay sheegaan hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ama kuwa maxalliga ah duqeyntan ka dhacday deegaanka laba garas ayaa ku soo aadaysa xilli dawladda Soomaaliya ay toddobaadkii hore sheegtay in duqeymo dhowr ahaa oo lala eegtay goobo ay ku sugnaayeen al-shabaab lagu dilay in ka badan 150 xubnood oo ka tirsanaa kooxda watahay nimco waad mahadsan tahay wixii wararkaasi ku soo kordhaa iyo howlgaladana waxaad kala socon kartaan barta internetka aan ku leenahay hbnonlinetv.com wararkaasi iyo kuwa kalena waxaad ka heli kartaa isla boggeena haatan Puntland waxa ay ka hortimid qorshaha qaadashada kaarka aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya Puntland ayaa ka hortimid diiwaangelinta iyo qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka ee Soomaaliya oo ay bixiso hay'adda NIRA iyadoo shacabka dhanka Puntland ee gobolka Mudug ugu goodisay haddii ay qaataan inay lumin doonaan sida hadalka loo dhigay xuquuqda maamulkaasi ay ku lahaayeen
gudoomiyaha gobolka mudug Puntland Faysal Sheekh Cali ayaa sheegay in tallaabo adag ay ka qaadayaan qof waliba oo qaata kaarka aqoonsiga muwaadinimo ee hay'adda NIRA bixiso taasi oo tilmaamay in deegaana gobolka laga bilaabay gudoomiyaha ayaa carabaabay in qofkii qaata kaarkaasi uu dhumin doono sidoo hadalka u dhigay xuquuqda muwaadinimo ee Puntland maadaama jiritaanka hay'adda NIRA uu ku sifeeyay mid aan ku dhisnayn sida warka u dhigay dastuurka dalka Soomaaliya inay ku dhisan tahay inkastoo oo hay'adan lagu dhisay xeerar uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya qofkii qaata kaarka aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya ee NIRA waxa uu limin doonaa xuquuqda muwaadinimo ee Puntland dad inta tagaan ayaa ay leeyihiin aqoonsi ayaynu ka qaadanaynaa horta dastuur ahaan ayaa jiritaankeeda la isku haystaa ayaa uu yiri gudoomiyaha gobolka mudug Puntland Faysal Sheekh Puntland ayaa dhowr jeer ka hor timid tallaabooyin kala duwan oo ay qaadeen hay'adaha dawladda federaalka sida tan imtixaanka midaysan diiwaangelinta muwaadiniinta codaynaya guddiga doorashooyinka iyo kuwa kale Puntland ayaa qiil ka dhigatay in dhismaha hay'adahaasi iyo sidoo kale gaarista go'aamada qaar ay banaanjoog ka ahayd sidaas awgeedna loo baahan yahay in madal la iskugu yimaado laguna wada hadlo wax xal ahna mowqifkaasi si midaysan loogu wajaho sida hadalka loo dhigay ma jirto wax war ah oo ka soo baxay hay'adda NIRA oo ay uga jawaabayso go'aankan ka soo baxay maamulka Puntland hay'adda waxa ay meelo kala duwan ay ka wada bixinta kaarka aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya kaarkan aqoonsiga waxa uu saamaxayaa haddaan si fudud kugu sheego in uu qofku ku heli karo waxyaabaha uga baahan yahay dawladda sidoo kalena waxa uu qofku sida karaa muddo 10 sano ah isagoo ku fishan kara hawlo badan sida hay'addu hore u sheegtay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxay beenisay wararka ay ku tilmaantay been abuur kuwaasi oo laga baahiyay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bayaan ka soo baxay waxa ay ku sheegtay warar baraha bulshada la isla dhexmarayay kuwa been abuura kuwaasi oo lagu sheegay in Mareykanku uu kala baxayo Muqdisho shaqaalaha safaaradda sabab amni darteeda hadal kooban oo ka soo baxay safaaradda ayaa waxa lagu sheegay inaysan jirin wax qorshe ah oo lagu dhimayo shaqaalaha safaaradda isla markaasina hawlihii caadiga ee safaaradda ay si joogto ah u socdaan warbixinada dhawaan soo baxay ee sheegaya in safaaradda Mareykanka ee Muqdisho bilowday in ay shaqaalaheeda muhiimka ah kala baxdo dalka waa been ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dawladda Mareykanka safaaradda ayaa marar kala duwan horay waxay uga codsatay warbaahinta iyo shacabka Soomaaliya inay iska ilaaliyaan faafinta wararka aan la xaqiijin si looga fogaado kicinta walaaca aan loo baahnayn dhawaan safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo saartay digniino amni kuwaasi oo ka dhasheen hadal hayn dhanka baraha bulshada ku faafay waxaana warkaasi oo saameyn ku yeeshay saacadihii waa socdaalka ee duulimaadyada ee Soomaaliya ee dhanka dibadda iyo sidoo kale kuwa kale ee qaar waxa iska hor keentay warbixintaasi safaaradda Mareykanku ay soo saartay mucaaradka iyo dawladda Soomaaliya inkastoo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in aysan jirinin wax amni darro ah oo Muqdisho ka jirta